يوسف جراد عمر أحمد ومشرح استاغي دب سو علنتا دولدنمدي Soomaaliya ay lahayd 22 sano ka hor waxaan ahay murashax madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xilkan aan soo doontay anigu uma arko xil ama siyaasad ah ama danaysi ah waxaan u arkaa xil ujeedadiisu ay tahay in lagu badbaadiyo qaranka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed lagu badbaadiyo xabadda iyo colaadda looga baxo dad badan oo wax yaqaana oo wadankan u naxaya la isu soo ururiyo dadka u tura oo markaas dhibaatada looga gudbo anigu waxaan murashaxiin badan uga duwanahay waxaan ahay ninka shaqadii uu haystay oo berman ah oo ilaa aan ka retire garoobo ii socon lahayd ama aan howlgab ka noqdo 20 sano oo la soo dhaafay inaan ka shaqeynay magaalo nabadan aan ku noolaa ninka shaqadiisa ka tagay oo ka dhaqaaqay maalin kaliya oo wadanka ugu soo laabtay in uu hawshan ka qayb qaato si aan uga qayb qaato hawshan meesha ilaha boonaatay la tashina marka dadka la yeeshay waxay la noqotay in aan raadiyo madaxweynaha xilka madaxweynaha Soomaaliya si aan halka wax badan uga saxo waa aqoonyahan xog badan ka haya burburka iyo dhibaatadii loo geystay dalkeena Soomaaliya haddii ay dhacdo siyaasadda inaan ka qayb gali waayo anigu ma ahi ninka ka laaban doona wadanka oo ku laaban doona London ama meel kale toona waxaan ahaan doonaa ninka shaqeeya Muqdisho ama wadanka Soomaaliya meeshii ilaha boonaata samafalka ha noqoto waxbaridda ardayda Soomaaliyeed ha noqoto media ha tababaradiisa ha noqoto hay'ad kale oo aan ka shaqeeyo ha noqoto anigoo shakhsiyan ka qayb qaata hadba sida ilaha boon si shakhsi uga qayb qaata dibadhiska wadanka ha noqoto xisbi mucaarada ha noqoto anigu marnaba dib uga laaban doono waxaan ahaan doonaa nin dadka Soomaaliyeed la nool lana shaqeeya xildhibaanow kala garo dhabta iyo dhalanteedka codkaagana u hibee musharax Yuusuf Garaad Cumar Axmed si uu wax uga qabto xaaladda dalka iyo dadka Soomaaliyeed horumarna uu u gaarsiiyo